golayaasha guurtida iyo baarlamaanka Soomaaliland ayaa maalintii shalay ansixiyay isla markaana ogolaaday heshiiska ay xukuumaddu la gashay dowladda Imaaraadka. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada xeebta Berbera oo ka daran celinaya amuurtaasi. ودان كهذا موقف كيغا أركان محل إيربورت كله بيجي مرات بيسي وحاول أكسر وحويا وحول بوجي أقوم تيجي ذلك يلا ضرب فريستا أنا وحويا يعني وقت يهرب لبيجي بالبرة بيس كده ويجرتي هذه مرة كان هذه روش يمكن أروح أنا لها لا كذا دي واحد فايدين لو جينا لا يمكن ثاني فايدين لو جينا لأن نسكت شنو أنا وحويان وحن قبارتي قارن عيا إنتان لس إنت ما دام ورت مكلا صحيح وهو بوليس صحيح ورت واحد يسكوي ديو أو وحويان للناقش أو لا ديسكس كريه أو لقوا هذا يا مهم هاي لكن تسوي دافتي إمي كانوا حلايا هاي حلاقة فير صدق حلاقة تحديره حلاقة إيجو هذه فايدين لو جينا ويلكم والله أنا كحوم هاي سليق الميلترية لقى فلنا قبل كساحل بالبراء مونا السنة تدهان مونا السنة اللي رهان مونا السنة قبل كانوا مونا السنة أصحين تلاقي أصحين خلط بهاد إن أرين كاتب له إيجو أيام مهمة وحلا واحد اللي يرسو مالان شوجا بالأرين كافير صدق قالها بارلما كتبها وانا أرين كافير صدق وخلط إما كشبكة إيربورت كلقوا سمين دهنا هدول نفري ينبا ورجع ينبا أنا وعاد مرة ولا توجنيا وحي كلاو دو هذا الميلتري قال له مدوان كروا ضد شيشايونا استحقوا قال مايو دباتو سمايه مويه وناك ما صوّدان حلقة في رسالة وعلى إسكال عليه وحلقة برق وروح القاضينا أصحين تلاسيي اللي بوليس كي إماراتك اللي هو دون نايت دنيرة ده قبل كساحل أنا ملء حافظة دارولة اللي هو مسؤول ويننا وركه هرني حكومة waxay fulisay ma taageersanin anagoo eegayna dawladda dhalinyarada gobolka saaxil waxaanu leenahay saldhiga amba markiiska sheeshul imaaraat ee laga dhisayo gobolka saaxil qaybta galbeed taasoo loo weegaaray 70 kiilo isku weera waxaanu leenahay arikaha laga fiirsado dadkan iyo dalkanba waxay soo mareen dhibo badan dagaalo badan si aanu ka duuleynay ee qoriga siyad bar nagu maamulayay maanta nin ajnabi iyo carab aan nagu maamulo ma doonayno haddana dhalinyarta gobolka saaxil arrinkan odayaasha waxaan leenahay iyo guurtida inkastoo sharaf naga mudan yihiin arrinkaa inay eegaan oo ay mustaqbalka dhow iyo ka fogba dhalinyartooda iyo ubadkooda mustaqbalkooda aayatinimo ay eegaan markaan waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay arrinkaa ha laga fiirsado ha laga tashado si midaysan ha loo eego haddaan dhalinyarta gobolka saaxil nahay ma doonayno dhibka ka imanayaan ognahay maadaama xuutiyiintii iyo qoladii ticis iyo cadan oo ay noo dhow yihiin oo nahay dad jaar oo ganacsi badanna uu naga soo galo oo imaka sababtay inuu ganacsiga hoos u dhaco dalka Soomaaliland 7% laga keeni jiray alaabaha gobolka Yaman sibaanba cadan iyo makhayo mukalla waxaanu ka codsanaynaa in maadaama ganacsiga lumay haddana colaado inay labadayadii dal haddaan Soomaaliland iyo Yaman aanu nahay inay taasuna ay dhibaato ka imanayso oo gataalka xuutiyiintu soo rido de waa kuwa maraakiibtii Mareykanka badda ku weeraraya marka anigu waxaan leenahay waa arrinka laga fiirsado colaad dooni mayno iyadoo markii hore wada dhaqaale darro qabiyaano abaar wax kastaba ina saameeyeen sidaynu ogsoonahay madaxweynuhu khudbadii uu ka horjeediyay golayaasha baarlamaanka iyo guurtida waxa uu ku soo qaatay inay tahay tallaabo u horseedi karta dowladda Soomaaliland aqoonsi dhab ah halka uu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah Saxad Caaji Xalishre isaguna sheegay inaanay jirin wax heshiis oo ay la galeen dowladda Imaaraadka si kastaba haatee dhawaaqyadan isburinaya ee ka soo baxaya mas'uuliyiinta sarsare ee xukuumadda haatan talada haysa iyo dhagtaaga bulshada ku dhaqan gobolkan saaxil ayaa noqonaya mid aan marnaba la saadaalin karin halka ay saldhigi doonto Cabdirashiid Suul Soomaali Cable TV Berbera.